بروفيسور أحمد إسماعيل سمتر أيا مركل سيديران لوغو سو دويي دالكا نيدرلاند xafladan oo si weyn loo soo agaasimay ayaa lagu qabtay magaalada Rotterdam ee dalka Netherland wana markii labaad ee Axmed Ismaaciil Samatar ay si weyn jaaliyada Somaliland ee dalka Netherland u soo dhaweeyaan aqoon-yahanka Professor Samatar ayaa sanad walba socdaal ku soo mara dalka Netherland kana bixiya lecture jaamacada ku yaala dalkan qaarkood jaamacadahaas oo ay ka mid tahay jaamacada ku taala magaalada Leiden jaaliyada Somaliland ee dalkan Holland rag iyo dumar waayeel iyo waxgarad xubno ka tirsan ahsaabta qaranka iyo mas'uuliyiin ka socda jaaliyada Somaliland ee Belgium dadweyne fara badan oo ay qaarkood ka kala yimaadeen dhammaan gobolada dalka Netherland ayaa si diiran u soo dhaweeyay Professor Samatar waxa ugu horeyntii halkaas ka hadlay Maxamed Yuusuf oo kamid ah guddiga qabanqaabada kulankan iyo ururka Nomad isagoo ku amaanay professorka sida wanaagsan ee uu umadiisa maanta ula tashanayo waxana hadaladiisii kamid ahaa imankana waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha guddida qabanqaabada ahna ciidii soo suurtagelisay isu imaatinkeena odayaasha kamid ah mudane Maxamed Yuusuf falyatafadal mashkuur وحوي أحمد يعني وحرت هذا وحي نغير وقت جاي نغير لكن هذا اللي ربنا عاوز وديار قلوبي مرك هذا القوة سوكه بيهدي له هيدا هذا أحمد سادو تهين لين عوان هكذا الكبرية معها ولين الذكر الإنسان ولين ماراثون دير أو سياسة أحمد كشري أو سوق عليه ماراثون كأحمد كنت تجي إلا دولة المشاركة لين صوماليا أو سيدي بالله ما كان يقول حنا يبيش كوهيا هذا سؤالك أحمد دوكو أركي أو نص أركي والحياة دي كنت تدي صوت عطي wuxuu halkii ku nabad galay nabayo iska soo noqday wadankiisa ku soo noqday reer Somaliland Axmed way u hiliyeen soo dhaweyn qof loo sameeyay tii ugu weyneyd horta anigu inta garay ayaa loo sameeyay si weyn baa loo soo dhaweeyay Axmed waa inuu ku tumayno cilmi iyo aqli iyo aqoon inuu ku tumayno Axmed waxaynu ka uga fadhinaa in wixii cilmiga iyo aqliga uu lahaa inuu wadankii wax kaga celiyo mid baa soo horeysa Axmed waa qof kaliya فركري بيت الصوالات على فول بدعو وحب بهاي أحمد إن تذكرت شو بسدا أو كربوا أو هيروا أو برنامج كو هذا اللف اللي أحمد بهاي أنت نهالك فردنا عاون بالله قاد أحمد وحي ضد سوى ملك كتير ولا يبادو إن اللف اللي شكرا لك أحمد هذا لو حكسر دوين يا مدن علي حروري أو حبين كم إذا تالي ده ما حبنا أبو فرعون إذا كان نذرلاند كسردو علي حروري soo dhaweynta iyo isxogoreysiga Professor Samatar aqoon-yahankeena qaaliga inaynu halkan ku soo dhaweyno maaha markii uu horeysay sanadkan gudihiisa waa markii labaad ee aan nasiib yeelano inuu noo yimaado waxaanu leenahay Professor waad mahadsan tahay soo dhaw waxaan halkan magaciina jecelahay inaan mahadnaq u soo jeediyo ambassadorkeena qaaliga ah Maxamuud Cabdi Dacar iyo afadiisa Safiya Maxamuud Saciid oo Sama Saciid oo had iyo jeer xaflad kasta oo qabano heeganino ah waxaanu leenahay wax kale uma abaal gudi karnaa waad mahadsantiin waxaan aad ugu faraxsanahay caawa in reer Somaliland halkan lagu wada dhan yahay cid ka maqnay aad bay farxad gelisay waxaan salaad ma professorku maanta inaan isku nimaadne halka inaan ka sii wadno sii xoojino oo aynu isku nimaadno xafladaheena qarannimo iyo wax alla wixii danta Somaliland baa wanaagsan caawa hadal badan kuma soo talagelin oo lecture-ka aynu caawa dhagaha u soo safaysanay badigiisa waxa inoo soo jeedinaya professorkeena Axmed Ismaaciil Samatar oo inaan ku soo dhaweynayno aniga waa markii saddexaad aan la kulmo runtii professor waxaana ahaa dadkii in badan markii uu ina ka maqnaa dhegta hadalku sheegayo oo kasta dhegta u dhigi jiray waxaan ahaa oo kale ka mid ahaa isaga iyo qaar kale oo ku jiroba raggii mar kastaba kuwii tabaniyay in ilaahay dalkoodii hooyo ee Somaliland ay dib ugu soo noqdeen ducadaana ilaahay malaa'ikay هذا واحد كسر دوينيا أبان سترك Somaliland قارة يوروب مدانة
محمود عبدي دعر فليتفضل. wadankii waxaa ka socda inuu ogaano sida loo dhisayo sida dadkii mustaqbalkoogii iyo maciishadoodii sare loogu qaadayo sida dhallinyaradii maaragtay shaqooyin loo soo saaray sida maanta maaragtay developmentka socda inaynu ka warhayno oo wixii gacanigu ka geysan karaynana aynu ka geysano waxyaalaha waaweyn dadku qaban karaya waxa weeye dadka dibadda jooga waxa weeye wixii investment ah wadankii maanta ku taageerayo inaynu maaragtay qabano inu sii kordhino oo dadkii iyo wadankii laga horeeyo. waxaan salaamayaa barofeserkeena Axmed Ismaaciil Samadar anagoo ka soconna jaaliyadda reer Somaliland ee dalka Belgium. waa markii labaad ee aanu la kulanno professorka aad baan u salaamayahay. kolley mar walba waxaan doonaynaa haddaanu reer Belgium nahay anagoo track dheer u soo marnay in aanu cilmigiisa iyo waayo aragnimadiisa wax ka qaadano. Somaliland hanolaato Somaliland habadaan cadawgeegu ha baabao ya dadka dhisaya Somaliland ilaahay hala jiro. waxaan doonayaa inaan ku bilaabo hadalkayga mahadnaq aan u mahadnaqayo way badnaayeen dadku laakiin ka soo shaqeeyay isku keen yeeray halkan soo qabtay waqtigiisu hagaajiyay inaan dhammaantood u mahadnaqo oo Maxamed Yuusuf ugu horeeyo safiirka inoo fadhiya xarunta European Union ee magaalada Brussels oo abu yar qaboojiyaan waxaan muxuu isku soo dhibay 4 saacadood 5 saacadood baabuur laakiin uu yar qaboojiyo wixii 2 saacadood iyo bar hadda aad baabuur ka wadana waa 2 saacadood laakiin aad baan u mahadnaqayaa inuu soo dhibay iyo inta kale Belgium ka socota waxaa kaloo doonayaa inaan salaamo macaani hadduu joogo oo ila yimid arrintan markii ugu horeysay ila yimid isagana inaan salaamo oo aan u mahadnaqo ayaan jecelahay. xiriiriyahana hore iskumanaan aad iskumanaan baran laakiin Faisal isagana waan mahadnaqayaa sida gaaban dad baa xiriiriya shaqada xiriiriyaha aan aqoon marka xiriiriyuhu maaha khudbada inuu jeediyo waa inuu magacyada dadka inuu sheego programku wuxuu yahay dabeetana qof walba introduction ka u sameeyo uu ka joogso nidaamkana gacanta uu ku hayo. intaan hadalkayga u galin oo hawlo badan baa inoo yaala oo haddaynu nahay Somaliland oo ka wada hadli doono laakiin dhowr arrimood baan doonayaa inaan u gaarsiiyo intiina halkan fadhida iyo inta warku gaari karo ku nool wadankan Netherlands. anigu aad baan idin jecelahay dad wanaagsan baad tihiin si wanaagsan baad ii soo dhaweeyaa laakiin dad safar ku wada jira haddii aanay runta isku sheegin oo la isku dabaal joogteeyo waad garanaysaa dabaal joogteynta daanoo uma baahni inaan Somaliland af quray leedahay uma baahni afku haka af Soomaaligu hakala weeynaado anigu sidii maxaan ku rahay Cabdullaahi Suldaan aftiga itima cadde iyo Xasan Sheekh Muumin iyo Ali Suguleya halka hadda ma gaari karayo hadraawi iyo kaas waa naxwigi weey laakiin de af kale ma jiro waa af qura ayaynu leenahay. Historika waxa ku qoran Soomaaliya wadanku inuu laba af leeyahay laba af oo Soomaaliya inuu leeyahay ayaa historika ku qoran inaka taasi maanta waa la yaab weyn inaga xageeno waa af qura marka haddii aan runta la isku sheegin dad meel ilaahay ku wada abuuray taariikhdoodu isku xidhan tahay mustaqbalkoodu isku xidhan yahay haddii aanay runta isku sheegin safarkoodu marnaba ma dhaqaaqi karin hadduu dhaqaaqana wuu kufayo. waxa weeye runtaan idiin sheegayaa reer Netherland Somaliland Netherland degan waa la idinka horeeya waa dambaysaan runtaan idiin sheegaya waan tagay Somaliland waxaan ugu tagay meelo badan oo Mareykan Atlanta iyo Columbus iyo Minneapolis of course
waxaan ugu tegay meelo kale oo Mareykan ku yaala reer Somaliland Toronto aan ugu tegay Ottawa aan ugu tegay Helsinki baan ugu tegay Norway magaalada caasimadda waa 19th May ayaan la joogay 18th May ayaan la joogay oo dhowr cisho wada joogno halkaas wada sheekaysanay waa la idinka horeeyaa waxa la idinka horeeyaana waxa weeye nidaam ma haysataan intaad wax isla goosataan dad idin hogaamiyo oo idin wada oo isla ogoshihiin oo deetana aad meeshii ballan lagu dhigto aad iskugu timaadaan أنا واحد قبل تذكر Somaliland ما أنت وطن كانوا يجوجين نذرلاند وطن كانوا وطن يرو أنا ترى ما كان راعي ماسترخت وهاك وبوهوس يستصادق سوما يا خروني كانوا أنت إلا خروني كمان ترى نورا خروني كانوا وطش سر سوما very easy ثم مركا وطن بلارنو جيرماني وكلاي مرايكاني وطن سلاو بلارنو لقود دالي يما وكاد يا باستور كي ميدوا 2 hours وطن كانوا كي مركا وحوي والدين كهرية نظام ما هيستان والد الأركانو نظام ما هيستان اسمه تبص عطان اسمه تير سندين يا دم بدوري بدو كتير وحل الجوجا وقت جي Somaliland الديس إيه بعد الجوجا لما أنا ديس كاريو ده كي جمال أي جوجا بعدها اسمه تير سنين أون الملود السعر لما ديس كاريو هذا كلامي وحال الديس أنا مركز دم ود حال يسنا وكانت هذا يا فكان أنت أسوي واحد دوني هنا ذي حريقه عرورتي إن جامعة ده كل جريه كوا هاي سكول كل جريه كأنا ماشي لك على هذا الحيو يدين كوي مادة تهلا يدنا كوا هلا إذا هو مركز كان رسول الله كوا وروحاس محيي ورسول الله لما كان رسول الله هول بيلي حتى أنا لسكوا حدني أنا قلبي جاي مسكحلو أنا إسقين وحبايب نسكون نقول ماي مركز تسوي يقدر دار استجيسته كلا دمبية استحترامه استجيسته كانت ضمبية احترامه يوين دعوة إلا احترامه ما يعني كرتيدا قفنا بعد تنجر الأنير لما تنجره أو كرتيلا إلا احترامه الله قرطه كرتيلا سو هذا كلمة قف دمرة دعوة إذا باهية تهمه إنه تو كرتيلا أو dedication أو شغال إنسان الله قرطه الله احترامه هل كاين يسوفر يستوي أنا ما أقول مرة قاربين أنت مرة سأوفر يستوي وضع احترامي ولا رأي كافر ده إن هرقول يسوي وضع أكفر يستان waxaa la joogaa qarnigii 12aad tartan baan ku jirnaa waxaa inaynu ka ilbaxnaa ayaynu u baahnaa in dib loo noqdo ma Somaliland ha noolaato Somaliland ha badhaadho cadawgeegu ha baaba'o ya dadka dhisaya Somaliland ilaahay ha la jiro Somaliland haddaynu imakuun idhaahno imakaanu Somaliland سمايسنا واحد Somaliland يراه تاريخ ما يجري تودا ولا نجاقات كانه لكن مركي إنه تاريخ ذا عنه تودا إنك أقوات كانه إنه تاريخ مش عم سنة وقت قال الجو وحال عقبتها تاجن قولها اللي هالك اللص وقت قال إلا فهم وقت قال الجو تبي ترى مستقبل كلا جودات حين ييرنا بري سهل تبي بيش الصوص سنة الصوص طبعا كسنة الصوص لبعتك الصوص محين يلي مركز يفرم سهل بعدي مستقبل كين لقوضة مركز أضل كان بلابي وحن لي ده مستقبل والله ما أنا قصدي يلاقت والله short term وقت جابن يا long term وقت قدير وقت نقول يا ده سنة حتى وقت قدير لكن وحلا قال طبعا لبعتن شن طبعا لبعتن يوحكم بدل بالله قال long term ووطن كان تاني إمك عاود درستو وذاك الدود مستقبل كمركي كهذا يعني كود الدود يعني short term بريد سهل تنبه لحد البلاد الصوص maybe في سنة الصوص هذا الرماح عين كسوى short term وحيكون كود هذا يعني long term ووطن كان أتكون نوشيين مبود جري كلام هدي تذكر هولند أنا كفكرين long term وحنا بظهر ريا كفكرين وحوي بيها سدلس قاعدية سما بيها سدلس قاعدية لا بيو يعلق وقدك سو هذا كلمة وطن كان بقول كي بصدقني كل دول يقول أياك بطل كهوسس مركز شقادو دي لا إله إلا ما أنت وطن الأبو أي أبو رمين أي وطن كنت جيني كرتين وحوي بيها سدل ولا كلام سأنا كوهفين تحوله دي مسكحدو دي إنجنيريكو دي شقادو دي تاسجلين وحيكون نقدين خبيرين تأدويده هو وين سيد لولا تقال بيها إذا بيو وبركة إله لكن مركي بطان وعاوي آفية أو حبيب مركي مريكان مقارنة نيو أورلينز أو تات كوين سوق لا يبدي أو قاضي اللي يديه تجيبها لوردس
kaabadihii waaweynaa ee loo dhisay in daadka ay joojiyaan oo daadkii ka xoog weynaatay waad aragtay sawiradaas aan filaya New Orleans dee kambanigii ugu horreeyay loo yaray wuxuu ahaa kambani Holland inay dejiyaan khidada cusub ee magaaladii lagu soo dhisayo New Orleans ee biyaha lagaga ilaalinayo mustaqbalka soo socda kow waxa weeye marka hore inaad jeceshahay wadanka iyo dadka ku nool passion by ingiriisiga la yidhaha passion عشق إلى وضعك اليوم وضعك كنول إلى جعش هذا عشق سنتها تذكر هون كنول أنا بروفيسور هذا نشاكي سنة ما أنت وأنا وده جوبني وأنا شاكي سنة هذه الجل ويكون شيء يعني يقعد ضد عنكو هشينا يروح حزبية كلا أي قلته هو ساعة دنا هولند نذرلاندز إيه فأبدا إثيوبيا تذكر كنول مركز دكتور أفرق كنول على وقه الله قرح أيام بدأت هون يعشق إسكول هيد afafka lagu hadlo the community different languages oo laga hadlayo konton iyo in ka badan af diimaha lagu nool yahay hadalkooga daa dad baa ku nool Ethiopia oo geedaha iyo cadceed iyo waxa caabuda soo degamayst Christian baa ku nool noocyo badan leh ba Coptic church ama noqoto ba Catholic church noocyo badan Muslim baa ku nool soo degamayst dadka sidaa u ballaaran afafka uu soo kala duwan yahay ay taariikhdooda in badan kala duwan tahay diintooda ay kala duwan tahay xitaa jinsigooda isna u eegayeen ay kala duwan tahay idin kala garan maayo waad ku wada eegtay xogaa qof ay raacsan ama cusbur yar la hado laakiin waad ku wada eegtay iyaga si waa different soo aad kan waad aragtay ma filan dood baa ka dhaxaysa dagaal ka dhaca revolutions baa ka dhaca wad ogtay hadda listen to this kalmad bay leeyahay waxay tahay kalmad إثيوبيا تقدم إثيوبيا تقدم إثيوبيا كو تو ده جميل مركز هذا الصومالي لا كو أولا مركز تاسر من إكريسو حدانو جيرين جعل جندر أو مركز تبايلوه يماتني مقادير تتماتين لسفكرون وهي دورشير لوجو كلا بمرمى وعين كاس أما بيرير لسبوق أبصد وعين كاس وعادي تسبين هذا كي كدعض هذا رقم ما كدعض لكن وين جرتام مال مركز دعضو أنا دا فكرين أو بروسينا يبقى تو يمكن يسمع معاه أنت يمرك يطوط يترتب وبين هذا الكورن القمر إن أنا جبين كريم بيس كهوس تدخل يعني يسمع قولي نفتو يسقط شيء وضن كوتش عشرة وأنا والكوتاس طلبات اللوبة هي وحوي جعل كده نورينس وحوي شقدا صعطها وقتigaas ingiriiska waxa la yiraahdo function shaqada waqtigaas socota waa inay noqotaa mid midhaheega la arkayay oo midhaheegu ay soo baxayaan oo midhaheegu ku deeqayaan wixii ka soo baxay noqonayaan waxa tidaado yaani dhamaanin oo taasi ilaahay umba dhameeyo hawsh ma dhamaatay bini'aadamka hawshu laakiin hawsha la qabanayo maanta ay noqoto mid dadku ay yiraahdaan not bad that was good وهاي أحسنت وحباك دي من لكن والله وإن الشقة الله دندن صدا إني دبتها ودي سيج جوجب معاك ولا هاي بور هي برسام كعرقة وفرده يا عسكري جم معاك ولا هاي كورنيل كجوجا معاك ولا هاي لاسعانو جو يا هالكيسام دي جي كفرده يا أحمد محمود مدحوينه يا دمانتون شقة يقبلنا ين every day وإن لقد دندن صدا ودن ديسك وين لقنا الصلاة والله قارك لكن هذا حفيز تكتده ولا ليه هو حفيز كي حنك أو تكت وتصقال في الصبح ما تكت وحي يقول عن ذي شيء تكت ونعيد الجوب أنت ونعيد الجوب ما صار أنا ستة مركب فانكشن إن الشقة الدولة ديت ما نقول والله قدنا الإنسان إن السؤال هوستنا كجحد أنت هي جعل كلب لبضع السمر يسكوي مادان وما دي وين نسنتا ويسعتا قبيلي وحبر هراي كتكتا سلاسي كل دقائق marka horta labada in la islo gado waqtiga la joogay iyo mustaqbalkuna labadaas u baahan shaqaduna inay every day socoto gunta hoose jiridu ay ku taagan tahay xididada hoose ay yihiin dad is ogol oo is caashaqsan oo taariikh isku xidhay oo meel fog ku socda inay noqoto waxa soo socota maxaan ku raayay doorashooyin baa soo socda doorashooyin oo dabeeshooda dib u weyn soo gashay وأنا عادي ده بايش من الاجتماع ده واتقرن سنة رمضان ده مركز وصل عطل تنوع عين كاسو يا مركز دورة شوي بس وصل
waanay soo dhow yihiin next year waxaa laga hadlaya 2015 ayaa laga hadlaya waxaan sanad ka badnay doorashooyinkaas waqtiga dhow haddii aynaan ka adkaan oo aynaan si wanaagsan uga soo bixino inaan uga faa'iidaysan qadiyadda Somaliland ee aynu ku doodayno way dhaawacmaysaa doorashada sida aynu u gelayno ee qiimaheeda loo dejinayo waa inay noqotaa mid xalaal waa inay noqotaa mid la isla ogyahay oo nidaamkeegana adduunyadu aarkaso ku qanacayso ay noqoto kolley dee way jiraysaa xaqiiqashiro doorasho adduunyada ka dhacdo intaasi jirin ma jirto inta Mareykanka ka dhacday wadan maxkamadda isla tagnay maxaan ku rahay Bush iyo Kerry watii maxkamadda la isla tagay oo binaadamka way ka dhacday laakiin inuu mabdaceenu noqdo inaynu doorashada si wanaagsan iskaga dhamayno imika si wanaagsan oo tafaqiyatan oo cilmiyeysan oo nidaamsan oo xalaalsan loo dhigo haddii kale Somaliland lama daafici karo waayo hubkeed ku daafacaysa baad iyo meesha ka baxay waa ko waxa ugu horeysa marka haddii doorashada dib loo galiyo preparation in la dhiso commission-kii dee doorashada maamulaysa electoral commission baa Ingiriiska leeyahay waa in la dhisaa oo dadka commission-ka ku jiraya ay noqdaan dad reer Somaliland oo shaqada yaqaana oo miisaan leh rag iyo dumar waa inay noqdaan oo hawsha maamula kii waa waxyaabaha aynu u baahanahay in degdeg loo sameeyo waana soo socotaa isha ku haya marka commission-ka yaanay noqona war dareebar kuma jiraan bay taana yaan noqon war ninkan aba gabadha la geli kartideedu maxay tahay way noqotay haddii kale waxaan ka ordayno man dib ugu ordaynaa soo garmayso taasi waa taas talabaad waxa ku xiga iyadana dadka codka bixinaya waxa la yiraahdaa voter registration dadka codka bixinaya waa in la qoraa way diiwaan leedahay diiwaan geliya leedahay waa inay yeelato ya oo waxyaabaha lama amuurba taasi faa'iido tahay mid waxa weeye dadkani madaxdani haddaan la dooran dee maaha madax weeye waa inay dadku doortaan dimuqraadinimada aynu ku dhaadano oo Somaliland hadda taariikhdeeda gaaban ay ka 20 sanadood really very good waa impressive ya taasi marka waa inaynu sii wadnaa waxa lagu sii wadana waxa weeye dadkii in ay dimuqraadinimada qofkii qaan gaaray ee marka uu dalmo inuu codka dhiiban karo loo sameeyo taas talabaadna waxa weeye voter registration ku dhalinaya deena la iskhayaamin oo qofku intuu buux galo hadana uu soo noqdo hadana ku shubo hadana uu soo noqdo hadana ku shubo taasina la iska ilaaliyo marka magac baad leedahay vote wadaad leedahay kaas lagu xidhayaa inaanad mar labaad soo noqon ama inta lagu soo meedmeero hadana aanad soo noqon aanay jirin iyo soo campaign-ku waa muraayad sida lagu saaray x-ray oo kale weey marka waxa weeye nabadgelyada dawladdu ma haday sidaa u xasiliso campaign-kii in la galo hal la isdhegeysto dooda sidaa ku socoto ilaa maxaan ku raacay ceelaayo ilaa sayla qofkii doonayay inuu wadanka madaxweyne ka noqdo iyo inay doodan galaan qofkii baarlamaanka degmada aad ka timid district aad ka timid inaad gasho tartanka ka qayb gasho marka campaign-kuna waa la isku bartaa inuu noqdo cilmi inuu noqdo caruurteena cilmi uu noqdo ilaa waxaanu dhisaynaa taariikh wanaagsan oo soo noqnoqoto in wax ku sii darno oo wax ku sii dar oo mustaqbalku taa weyn marka ana waxaan leenahay haddana nahay dadkii shicibka caadiga ah ee reer Somaliland waxaan ku leenahay saddex iyo madaxdooda waxaan ku leenahay naga daaya maxaan ku rahay xisbigana reer hebel baale xisbigana reer hebel baale xisbigana waa markii reer hebel waxaan naga daayo dadka madaxda xisbiga weey ama ha noqdaan kuwa doorasho u galay ama ha noqdaan kuwa xisbiyada madaxda u ah leadership-ka xisbiga hadda chairmanada u ah iyo dadka kale saraakiisha vision-kii aragtidii dheereed banaanka noo soo dhigo نوصل لقى واحد وقلنتان Somaliland إلى النقطان ذات الدنيا إلى أطريسان شنطة سنة صوص على فيجن كيك نوصل لقى فيجن كنا هو أركتدا دير أركتدا دير إذا يصير كل سوق تجيلي كرسو step by step فيجن كان نوصل